Waad salaamay akhaarta meel ba aad joogtaan waa mar kale iyo Mawlid Xujaale. Wahsigas isku tihiin in badan howl iyo qorshe muhiim ah aad dejisatay ma kaaga dhamaaday waqtiga bari ayaan sameynaya galabta ama caawa ama usbuuca dambe. Kadibna mis aragtay adigoo hooshii ay kugu badatay waqtigana uu ka dhamaaday. Haddaba wahsigan xal ayaa loo hayaa. Xalal badan ayaa jira laakiin midka ugu cajiibsan oo aniga ii shaqeeyay ayaan rabaa inaan kula wadaago. Waxaana la dhahaa the 2 minute rule. Waxaa soo saaray qoraaga caanka ah ee lagu magacaabo James Clear oo qoray buugga caanka ah oo lagu magacaabo Atomic Habits. Waxaa suuragal ah inaad aragtay buuggaas. Laakiin the 2 minute rule muhiimadiisa dhan ba waxay tahay. Wax walbo aad qaban rabtid, waxaad ku soo yaraysaa in 2 daqiiqo keliya aad u fariisatid inaad samaysid. Tusaale ahaan, waxaad rabtaa inaad buug dhan akhrisid. Buuggaas aad akhrin lahayd hadduu culays kugu yahay oo mar walbaba buugga intaa qabatid aadan ma aragtay u fariisani karin, waxaad maskaxdaada gelisaa aad qorshaysataa inaad 2 daqiiqo keliya hal buug aad ka akhrisid. Kadibna isaga tagtid. Maalin ku xigtana 2 daqiiqo keliya inaad buug kale ku akhrisid iskaga tagtid. James Clear wuxuu leeyahay marka barnaamij kastoo weyn ama hawl kastoo baaxaddeeda leh oo culayskeeda mar kastoo aad rabtid inaad qabatid kugu weynaato, waxaa lagu soo yareeyaa 2 daqiiqo keliya. Inta aad ka kari kartid 2 daqiiqo ayaa loo fariistaa waana laga socdaa. Marka maskaxda bini'aadamka 2 daqiiqo markaad wixii yaraysid oo aad wax yar ka dhigtid way kuu fududahay inaad wixii dhammaysid. Tusaale ahaan buug dhan haddaad dhahdid waa akhrinaya aadan hal marna kala furin, waxaa kuu dhaantay inaad dhahdid buuggan maanta hal page bes ama hal book ayaan ka akhrinayaa waadna ka soconaysaa. Waana maaragtay tijaabo la sameeyey oo dad badan u shaqeysay. Aniga kula hadlaayo waan isku dayay way ii shaqeysay. Wax walbaana markaas aad ku samayn kartaa oo hawl noocay doonta ha ku ahaato ha ku taalo ama qoraal ama wax kale oo aad qabanaysid noocay doontaba haddii aad yaraysid waqtiga aad ku qabanaysid 2 daqiiqo in yar aad waqtigaaga u siisid way isgargaarayaan kadibna waxaa arkaysaa usbuucii markii uu dhammaado adigoo wixii dhan dhameeyey. Wuxuu James Clear marka tusaale usoo qaadanayaa kooxdan Ingiriiska ee qaranka ee tartanka baaskiilada u xilsaaran ayaa 2003 ilaa 2004 waxay keeni waayeen dadaal kasta ay sameeyaan heerkii ay rabeen way gaari waayeen. Kadib waxay soo shaqaaleysiisteen nin oo coach ah oo sports isagana maaragtay dadka coach gareeya oo caan oo British ah oo isagana cyclist ahaan jiray oo lagu magacaabo Dave Brailsford. Dave marka wuxuu u keenay qorshe ah in maalin walbaba hal kaliya boqolkiiba hal kaliya inay ku dadaalaan inay ay ka meel keenaan waxyaabaha maaragtay xirfadaha ay ku dadaalayaan inay sameeyaan ama ha noqoto adkaysiga ama ha noqoto orodka baaskiilka noocu doonaba ha noqdo in ay hal kaliya boqolkiiba ay focus ka saaraan 1% kaliya waxaan ku dadaalaynaa in aan bal kursiga inaan wax ka bedelno cunada aan cunayn inaan wax ka bedelno qaabka aan u jiifanayno iyo xataa barkimaha ay isticmaalayaan buu wuxuu dhahay mid boqolkiiba hal kaliya ha lagu mashquulo maalin walbo. Siday u wadeen markaa intii yaryaradu isgaagaadhay ayaa wuxuu yidhi marka haddii aan sidan ku wadno dhowrka sano soo socda waan ku guuleysanaynaa tartanka caanka ah taqaanaan la dhaho Tour de France oo Paris lagu qabto France lagu qabto. Kadibna wallahi 3 sano gudahood waxaa la dhahay way ku guuleysteen sharciga uu soo dejiyay markay raaceen. Wax kalena ma ahayn waxay xiriir la leedahay 2% rule-ka sorry 2 minute rule-ka ay xiriir la leedahay. Wax walbo aad qabanaysid inaad yaryaraysid kadibna ay iska gaadho focuskaagana aad meelo yaryar saartid ilaa hadhow dambe ee markaa isugu kaa tagto oo hadhowna aad guusha aad rabtay aad ka gaadhid. Sidoo kale waxaa jira tusaale kale oo iyadana oo aad aan oga helay oo la xiriirta waxa marka lagu celceliyo iyo in mar walbaba ma aragtay wixii lagu dhaco la qaldo kadibna lagu guuleysto cashir laga barto ku celceliskaas dambena uu isu bedelo hadhow wixii inaad perfect ku noqotid sheeko ayaa jirto. Waxaa jira marka professor lagu magacaabo Jerry Wilsman oo jaamacadda Florida bare ka ahaa wuxuuna bari jiray sawir qaadidda. Waxaa la yidhi marka wuxuu sameeyey kalaaskii ugu horreeyay semesterka markii uu termka bilaabanaya markuu soo galay ardadii fasalka ku jirtay wuu kala qaybiyey 2 koox oo isla eg ayuu ka dhigay. Kooxda hore wuxuu dhahay waxaa ku imtixaanka waxaa kaga qaadayaa termkan markuu dhammaado in hal sawir keliya soo saartaan oo waxaa laydinku tijaabinaya idinka laydinku imtixaamayo waa tayada. Kooxdan kalena wuxuu dhahay waxaa lagu imtixaamayaa waa tirada. Kooxdan tirada waxaa laga rabaa ayuu dhahay ilaa 100 sawir inaad keentaan. Kooxda kale tayadana wuxuu dhahay idinka waxaa laydinka rabaa hal sawir oo tayadiisa iyo quality-giisa aad loola dhacay oo heer sare ah kaliya inaad soo saartaan. Kadib termkii markuu dhammaado cashirkii siiyey imtixaankii ay galeen kooxdee u malaynaysaa inay ku guuleysatay. Kooxdii tayada ma guuleysatay mise kooxdii tirada? Waxaa cajiib ah waxaa guuleystay oo sawiro qurux badan soo saaray kooxdii la dhahay tirada ku dadaala oo 100 sawir soo saara. Sababtuna waxay tahay waxaa la dhahay
boqolkaa sawir maalin walba sawirka ay sameeyaan sawirka ku xigo waxbay ka baranayeen, way ku celcelinayeen, way tijaabinayeen. Sawirka tobanaad, kan labaatanaad, kan soddonaad, konton ilaa dee boqol ay ka gaaraan. Waxaa u soo baxaya maalin walbaba inay wixii ay shalay qaldeen maanta saxaan, ku celceliska ay ku celceliyeen ayaa markii dambe perfect ku noqdeen, sawirro khatara ay soo saareen. Kooxdii la dhahay hal sawir keliya laydinka rabaa oo laakiin tayadiisu sarreyso. Waxay waqti badan geliyeenaa la dhahay inay ka fikiraan sawirkan qualitygiisa, theory maanta oo dhan ma aragtay ka xisaabtamayeen. Waxay samaynayeen tijaabo ah qoraal qaabkeen sawirkan ku sameynaa, waqtigee ugu fiican. Waqti badan waxaa kaga lumay inay ka fikiraan sawirkan tayada leh siday u samayn lahaayeen. Waxaa markaa ka baxay meesha inay tijaabo badan sameeyaan ay ku celceliyaan. Halka kooxda kale ee maalin walba qaldamayeen, maalinka kale ay ku celinayeen, maalinka saddexaad ku kala samaynayeen. Cashiradii isku tagtay ay ka barteen boqolkii sawir bay sawirro quality leh u soo saareen oo faa'iido badan. Tan marka waxaa laga qaadan karaa wax walba oo aad samaynaysid noloshaada in ku celcelisku uu fiican yahay, in mar walba wixii aad ku dhacdid oo aa khaladid ay wax fiican tahay ilaa markii dambe aad ka noqonaysid perfect. Waxaan rajaynayaa inaan wax badan ka faa'iiday. Haddii uu ku anfacay fadlan la wadaag asxaabtaada. Insha Allah waxaan idiin soo gudbin doonaa barnaamijyo noocan oo kale ah oo anigana wax aan ka faa'iiday, idinkana aan rajaynaya inaa wax ka faa'iidaan. Haddii aad talo iyo tusaale haysaan, fikirkiina commentiga iigu soo qora. Waa mahadsantihiin.